maanta oo maalin siniina 12 Janaayo 2019 waxaan maanta la kulannay ardadii 10 ahayd ee ugu sareysay imtixaanka sanad dugsiyeedkii 2017 ugu sareysay imtixaankii qaranka fasalka 12aad kulankaana wuxuu daba socday ballanqaadkii loo sameeyay markii imtixaankii la soo dhajiyay bishii maaragtay Luulyo 16keedii imtixaankii markii la soo dhajiyay ballanqaadkii ahaa in 10 ugu sareysa ay maaragtay ay xaq u leeyihiin ama la siin doono scholarshipka manxooyinka ay rabaan oo wadankeeda markaas oo yimaada marka maanta waxaan kala hadlaynaa arrimahaas 8 kamid ayaa timid labada kalena waxay ku maqnaayeen safar gobolada ay jireen marka 8 yaan la kulanay annagoo ka xog wareysanayno halka ay rabaan iyo waxa ay rabaan inay soo bartaan iyo dadaalada looga baahan yahay iyo waxa la rabo inay maaragtay ay sii sameeyaan ama diyaar garowga looga baahan yahay inay maaragtay sii sameeyaan inta aysan aadin iyo xog wareysi kale inay meeshii maaragtay runtii diyaar u yihiin inay hawshaas ay qabtaan iyo maaragtay inaan runtii aan tusno in wixii shalay loo ballan qaaday walwalkii laga bixiyo oo aysan maaragtay dadkii waxaa ka dhuntay inay aaminaan nidaamkii dawliga ah inay aaminaan ayaa ka dhuntay marka inaan taas aan ku adkayno aan dhahno wixii inaan u cadayno in waxoodii sida shalay loogu ballan qaaday diyaar yihiin iyadoo waliba shalay wasiirkii u ballan qaaday uusan maanta la bedelay wasiir kale uu joogo in waxoodii uusan ku xirnayn shakhsi laakiin uu ku xiran yahay nidaamka dawliga haddii marka shalay wasiir uu ballan qaaday wasiirkii bedelayna inuu meeshiisa ka sii wado haddii maaragtay nidaamkoona isbedelana marka ay saas kusii soconayso marka runtii waxaan rabnay inaan dhallinyaradaas soo dadaashay imtixaankii ugu sarreysay inaan maaragtay aan siino kalsoonidaas oo waxoodu diyaar ay u yihiin haddana ay laga yaabay waqtiyada dhow inay maaragtay imaan doonaan manxooyinkii bilaaban doonaan markii ay bilaawdaan in maaragtay ardadaas choice-kooda ama meesha ay doortaan ay leeyihiin xaqa ugu horeeyo aan siin doono marka taas ayaan kala kulannay runtii aadeen ugu farxeen aadeen u soo dhaweeyeen runtii maaragtay systemka dawliga ahna iyo nidaamka hadda wax ku socdaan cadaaladdan runtii aad u soo dhaweyn aadeen ugu farxeen waxaan rajaynaynaa marka intaas ay dadka Soomaaliyeed dhammaantood ay ku abuurto kalsooni ay ku qabaan systemka dawliga ah in maaragtay nidaamkii dawliga uu soo noqonayo in cadaaladii ay maaragtay Soomaaliya la gaarayo waan ognahay 100% in wax walba aanan annagoo intaan soo soconay aan 100% bini'aadan aan gaarin laakiin cadaaladda ugu dhow inaan tiigsano 100% inaan gaarno inaan tiigsano marka runtii aad u ficnaan munaasabadaas aan kula kulannay wixii hadda ka dambeeyay ayagii ayaa maaragtay waxyaabihii looga baahan yahay iyo sidii maaragtay isku sii dhisi lahayn intaan laga gaarin aan kala hadalnay taas ayaana maaragtay barnaamijkeena maanta ku saabsanaa marka aad u mahadsantiin jazakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh